gudoomiyaha shirkadda Telesom Cabdikariin Maxamed Iid ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu qabtay wadanka South Africa taasi oo ay ka qayb galeen shirkado fara badan oo caalami ah waxaana aanu khadka telefoonka kula xiriirnay gudoomiyaha shirkadda Telesom oo shirkaasi ka qayb galay isla markaana lagu gudoonsiiyay abaalmarin caalami ah marka uu horeysay ilaa mahadskale marka labaad waxaan jecelahay halkan in markabda maxaa celiyo dadkii faraha badnaa عوديي taageerada runtii muujiyay waxa kaloo jecelahay halkan uga mahad celiyo dhammaan maamulka shirkadda shaqaalaha macaamiisha iyo saamilayda waxa kaloo iyana la ilaawayna ilaa maalintii shirkadda aanu samaynay ilaa iyo maanta sida dawladdu ay mar walba noo barbar taagan tahay iyada la'aanteena aanay maanta guushana aanay noo soo hoyateen shirkan waa shir sanadla ah waxa lagu qabtaa magaalada Cape Town ee South Africa koonfurta Afrika waxa isku yimaada dhammaan shirkadaha iyo maaragtay daneeyaasha majaalka ma aha un isgaarsiinta dhinaca technology-ga dhinaca bankiga dhinaca maxaa wax soo saarka maaragtay kala gedisan ku tacalluqa teknolojiyada caalamiga ee socota shir sanadla ah waxa lagu magacaabaa Africa Cup waxa isku yimaada oo kale dhammaan maaragtay dadka halabuurista cusub la yimaada iyo dadka products ama wax soo saar cusub leeyihiin ayaa isku yimaada runtii waa meel la isku weydaarsado fikradaha iyo maaragtay aaraada dhinacyada kala gedisan ee ganacsiga iyo teknolojiyada iyo horumarka iyo shuruucda maaragtay loo dejinayo oo ay dhammaan laftooda ay ka soo qayb galaan shirka waxa ka soo qayb galay madax fara badan oo dawladaha Afrika ka socda wasiiro iyo commissioners bare waxa furay wasiirka isgaarsiinta ayaa maalintii horeysa furay dalka South Africa waxa jooga wasiiro fara badan oo Afrika ka wada socday shirkadihii waaweyn ee caalamka madaxdooda dhan ayaa joogay taas ayaa runtii ay ahayd maaragtay guddiga kulankani waana mid sanadla oo sanad walba dhaca waxa markaa jira horumarino la bixiyo oo lagu bixiyo majaalada kala gedisan shirkadaha iyo dadka halabuurista leeyihiin xalay ay xafladu dhacday alxamdulillah ilaahay mahad u sugnaatay waxa runtii innaka inoo soo hoyatay inaynu ku guulaysano CEO-ga ama gudoomiyaha ugu wanaagsan shirkadaha qaaradda Afrika ee sanadka la inoo xisho waa guul aan oran karo ummadda reer Somaliland ay u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed ay soo hoyatay ummadda madaqada Geeska Afrika ku nool ay u soo hoyatay dhinaca kalena war-saxaafadeed hambalyo ah oo ay soo saartay wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Somaliland ayaa hambalyo u dirtay shirkadda Telesom oo gudoomiyaheeda Cabdikariin Maxamed Iid uu ku guuleystay abaalmarinta hogaaminta ugu wanaagsan ee shirkadaha isgaarsiinta Afrika sanadkan 2018 waxaana wasaaraddu markasta ay tiri waxaanu dhiirigelinaynaa soona dhaweynana shirkadaha ka shaqeeya horumarinta isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Somaliland guusha shirkadda Telesom ay gaadhayna waxa ay marxaati cad u tahay horumarka isgaarsiinta Somaliland ay gaadhay iyo halka aynu kaga jirno gobolka iyo caalamkaba abaalmarintaasina waxa ay guul weyn u tahay ay yiraahdeen dhammaanba shirkadaha isgaarsiinta iyo bahda teknolojiyadda Somaliland waxaana war-saxaafadeedkaasi uu naga soo gaaray wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Somaliland